بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابك كده وضع إنجنير أمر جيار. ما أنت نوع عايزين وضع 10 كي أفراد كوساب سنبرشة Adobe After Effects. مركز 10 كان عم كوي قدونا إلا أيو لو خضب ما أنت عم بردونا سيدا أيو شقيان لايرسك After Effects. مركز لايرسك سيدا أجيدين شاشد إنك مغطو إلا أي تضبط لاير text layer, solid layer, light layer, camera layer, null layer, shape layer, adjustment layer. marka focus ka aan saari doonaa maanta labadan qodob ayaan qaadan doonaa oo ah text layer iyo solid layer. marka saxaabay waxaan soo diyaariyay marka clip yar aan ugu talagalay inaan hordhac ugu dhigo cashirka sida u shaqeeyaan bal daawada. haddii aan bilaabo waxaad u jeediin qoraal iyo background oo blue ah. marka background blue waa layerki qoraalkana waa midkan oo dul saaran layerki. marka sida u shaqeeyaan sidaan oo kale oo isticmaali kartaa. marka meesha waxa ku qoran ku soo dhawaada tutorial ku saabsan layerska. haddii aan sii balay garay clipka waxaad ku arki doontaa qaab kala duwan oo loo isticmaalo layerska. midkan soo socda fiiri, midkan daa eegno waa layer blue backgroundkiisa yahay oo la socdo text qoraal. haatan waa soo bilaabnay aan eegno sida u shaqeeya marka layerska iyo textigaba. meesha waxaa ku qoran layerska solid layerka waxaa loo isticmaali karaa as a background marka projectiga wax ku edit gareynaysid marka background ahaan u isticmaali kartaa sida soo socota. haatan markaan solidka meeshan ayuu noo yaalaa. marka projectiga hadda black waaye backgroundkiisa bluega waa ka dhigi kartaa adigoo jiidaysid. marka solidka waxyaalo kala duwan ayaa loo isticmaalaa. marka haatan waa bilaabi doonaa tutorialkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay alaha aragteen. marka daawasho habboon. sida hore usoo qaadateen sida loo abuuro composition. marka stepka ugu fudud markaa maraysid adigoo taabanaysid iconkan ku qoran tahay create composition. marka magac u baxsa ayuu dhahay iskaga baxsanayna oo kale. marka meelahan widthka iyo heightka waa sixi kartaa. all squareka waa dooran kartaa pixelka u rabtay. duration timekeena marka hadda 00 waa hourka waa midka ugu horeeya. godka ku xigo waa minute, waxaa ku xigo second. marka 30 second iyo 28 ilbiriqsi aan saaran. waxaan bedelaynaa backgroundka aan ka dhiganayno colorkan siyaan. dan hadda waxaa abuurna composition cusub. step koowaad markaad inaad abuurtid rabtid solid waxaad samayn kartaa inaad tagtid layer dan new. dhammaan waxaad arki doontaa layerada kasoo hadalna sida text, solid, light, camera, null, shape layer, adjustment layer. marka ma soo koobi karna maadaama videoga waqti badan qaadanayo. waxaan rabaa inaan labadan ugu koreysa qaadan. haatan text layer si u shaqeeya. text layer marka isticmaalaysid waxaad qoraal inaad soo gelisid. tusaale hello oo kale. marka hello projectiga ayuu ka mid yahay. marka waxaad rabtaa inaad u samaysid background gooniya. sida u isticmaalina background goonaha u isticmaali karna sidaad hello nagu muuqato backgroundka oo projectiga wata ayuu ku muuqda. marka anigoo ku laabanayna layer ayaa waxaan ka dooranaynaa solidka si u shaqeeya waaye. solidka maadaama hadda backgroundkeena siyaan yahay waxaan ka dhiganaa color kale. tusaale colorkan bluega ayaan qaadan doonaa. sidaan waxaan ku abuurmi doono box yar oo rectangle oo lagu magacaabo solid.
textigan oo dul saari karnaa. Okay, haatan waxaan abuurnay solid iyo text. Also way jiidi kartaa hadduu kuu yaryahay. Marka sidan ayaa hadda qurux ah. Daarti inaad farta bedeshidoo kale fontiga waxaa ka dooranaysaa dhankan hello, then waxaad tegaysaa formatka character ayaa ka dooranaysaa, then colorka black waa bedelina, waxaan ka dhiganay yellow. Okay, haatan wuu muuqdaa. marka haddii aad play garaysay projectkaaga waa ujeeda inuu isbedelayna marka oo socdo. marka daarti inaad waxyaalo kale soo gelisid automatic waad ka soo jaraysaa. marka kan uu kore textiga waa oo soo kala hormarinayna, dhankan ayaa ka soo jarayna. okay, halaas inuu socdo ayaa rabnaa. dhankan waa ka sameynaa gadaal. haatan bal eeg soo kusoo baxo. okay, also waxaad samayn kartaa inaad abuurtid solid kale adigoo process kale maraysid. right click, then new, then solid. solidka colorkaan ka bedelina, colorka waxaa ka dhiganay colorkaan kale u dooranayna. also pixelka waa bedeli kartaa oo widthka waxaa ka dhigi kartaa 600 waxaa ratid. heightka sidoo kale waa bedeli kartaa. haatan waxaa abuurnay solid layer. okay, waxaan kusoo muujin doonaa taariikhda maanta anaga isticmaalayna text. automatic symbol waa ku dul qoraysaa bis sida computerkayga sheegaysa caddiisa. waa 8 bishii 12 2019. 8 bishii 12 2019. automatic fartada inaad iska bedeshid rabtid waa bedeli kartaa. okay, haatan wax yaraa idin tusay. haatan projectiga meesha ka wada bilaabanayo waa inaad soo yaraysaa maadaami oo inta ka bilaabanay calaamadaas meesha ku egyahay. markasta kii hore ayaa ka tusaale qaadanaysaa. kana iska soo jari doona. okay, haatan aan soo bilaabana. marka waa kii aan kuu sameynay oo ah hello. kii labaad noo soo muujinaya datekii taariikhda. okay, also waxaad samayn kartaa another solid kale adigoo kan iska soo jaray. maadaama 30 sekin ayaa haysataa, 30 sekin waxaa rabta ayaa ku edit garay kartaa. haddaa rabto cod waa dul saari kartaa. haatan si aan u baraatikeeno layerka markaas abuuraysid waxaad tegi kartaa layerka hore, then new, then waad dooran doontaa layerka rabtid inaad isticmaashid. haatan anaga diyaarada waxaan saaraynaa text iyo solid. marka haatan sida u shaqeyna waa soo aragnay. marka mid kalena abuurna ayaan rabnaa. marka symbol waxaa kugu fudud inaad internet keli ku dhahdo dhankan bidixda new, then aad ka dooratid solid, then colorkaan u xulano green ayaa ka dhiganaa. then okay, haatan solid green ayaa sana resizing ku samayn kartaa, waa jiidi kartaa oo la soo weynay kartaa solidka. maadaama solidka text haddaan rabno inaan dul saarno symbol waa dooranaysaa ood qoraysaa. hadda symbol farta aad bedelaysaa adigoo dooranaya highlight. asxaabta maanta waxaa baranay sida u shaqeeyo solid iyo layer text. marka weegi xiga insha Allah waxaan eegi doonaa labada layer ku xigto layer 3 iyo layer 4.
oo light layer iyo camera layer. marka sidaas ayaa ku wadi doona insha Allah. marka maanta cashirkeena waxaan ku qaadani sida ay u shaqeeyaan layers. marka simple loo isticmaali kartaa sida u shaqeeyaan hada layer rabtid adigoo background meel ka soo qaadan aad graphic design aan isticmaali kartaa. marka Adobe After Effects waxyaalo ku wanaagsan marka waxyaalaha kamid ah layers kan isticmaashid aatan soo bilaawno projectiina waxaan noqdo maanta inaan saan u edit gareeno sidaan quruxda badan ee idinka muuqata shada. marka waa mahadsantiin asxaabay sida aad u dhageysteen cashirkeyga. please subscribe, like and comment and share. inshallah next week waxaan eegi doonaa layers ka xiga. waana mahadsantiin mar labaad.